مدهوريو نقطة هبر هبر كليه بشيو مويده وقدي مويده وقدي قرنكا 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 حرصدو قرنكا هيبدك وقمو قرنكا قرنكا حرصدو قرنكا هيبدك وقمو قرنكا قلوبتها قراه هيك النقضاي كالنقضاي هالقولا كالنقضاي قلوبتها قراه هيك النقضاي كالنقضاي هالقولا كالنقضاي وهيك النقضاي قرنكا قرنكا قرنكاي قرنكا قرنكا حرصدو قرنكا هيبدك وقمو قرنكا قرنكا حرصدو قرنكا هيبدك وقمو قرنكا قلوبتها قراه وهيك النقضاي كالنقضاي هالقولا كالنقضاي قلوبتها قراه وهيك النقضاي كالنقضاي هالقولا كالنقضاي وهيك النقضاي وكاهر مريدكي هويه ninkii u haweyn hoggaanka dalku hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel wakaahor maraydhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalku hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel iyo dhalinyarada iyo gudoomiyaha dhalinyarada ee qolada howlwadeenka ka ah ee garoonka dhammaan taliyaha booliiska ee Galinsoor intiina meesha isku timid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib hawl yar oo meesha waxaan u nimid garoonka inaanu waxaan hawl u nimid meeshaan inaanu aan booqanno garoonka degmada Galinsoor oo rag mataqaanaa waxgaraday dhalinyaro ah iyo dadka deegaanku ay go'aan ku gaareen in ay u sameeyaan muddo dheerna ay ku haminahayeen hamiguna hadda waxa weeye waa midka ugu muhiimsan oo adduunka bini'aadanku ay wax ku qabsadaan runtii waxa weeye shaqo ballaaran ayay qabteen sida u jeedaan annaguna waa soo aragnay insha Allah annaguna hadda waxaan wixii ka dambeeya waxaan ka shaqayn doonaa in annaguna gacan ka geysano oo la shaqayno meeshaan waa u baahan tahay garoon waa meel istiraatiiji oo aad iyo aad ugu wanaagsan garoomada waxaanu qaban doonaa inaan dawladda keenno ay arkaan in security-ga iyo mataqaanaa meesha muuqaal ahaan iyo istiraatiiji ahaanba ay ugu fiican tahay garoon marka aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dadkii isku dayay oo fikraddan yani ka shaqeeyay oo Cabdirasaaq Cabdullaahi Caanood uu ka mid yahay iyo dhalinyaro kaleeto waxa kale oo jira in ay u furan tahay meeshaani dadka maaragtay maalgelinta ka shaqeeya adduunka hal qof wax ma qabto iyo group iyo koox dad badan baa wax isku darsada markii wax la isku soo darsadaan wax ka soo baxaan adduunka dhan waa globalization weeye waxba la isku darsadaa marka in allaala iyo intii aad u baahan ayaduna inay maalgelinta ka qayb qaadato oo maal gashatana waa lagu soo dhaweynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa weeye waa in la dadaalo dadaalkana wax lagu gaaraa
meeshaanina hadda waa meel boqolkiiba boqol aad iyo aad ugu habboon inay garoon noqoto marka horaaba ilaahay u sameeyey oo natural ahaan degaan ahaan iyo amni ahaan iyo haddii alla kuu roon yahay mataqaanaa ciid ahaanba marka soo dhowaada raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin maanta waxaan joognaa garoonka weyn airportka General Aidid Airport garoonkan wuxuu ku yaalaa degmada Galinsoor waa degmo ku taala kala badha mudug iyo galguduud santarka mudug iyo galguduud ku taala geeskan waxa ku leedahay xuduud baahida loo qabo waa la dareemi karaa aad bay garoonka ugu baahneed maanta waxaan dhex taaganahay garoonka saarkiisin shaqadii ka bilaabatay way socotaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay maalgashadaan garoonkan waxaa hindisay Cabdirasaaq Cabdullaahi Caanood oo ku magac dheer Kumbad hindisaagii wuxuu u fasaxay dadka inay mataqaanaa maalgashan karaan qof alla qofkii mataqaanaa ku soo biiraya inuu ka qayb qaadan karo waxa kale degmada Galinsoor intii mataqaanaa daafaheeda ama dadka jaaliyada maqan ama dadka waxa ugu baaqaynaa inay deegaanka Galinsoor horumarka laga wado oo dhinac walba ah ay ka qayb qaataan garoonkan waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in dadku ka soo dego dhaqaalaha laga soo dejiyo wax walba loo baahan yahay meesha in laga keeno marka haddii meeshaan odayaashii hore raggii hore iyo madaxdii hore ayaa ka khudbaysay oo ina sheegtay in u gudbisay inay meeshaan airport yahay marka anaguna haddii aad iyo aad baan uga soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaa raggii maartay meeshaan aad asaaskeeda iyo waxqabadkeeda lahaa ugu horeeyay marka hadda waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo maartay wax ka qabanaysana waa soo dhaweynaynaa sidoo kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas waa intaas mideeda kale labaad Galinsoor waa magaalo guuna airportna xilligan waa u baahan tahay in airport laga sameeyo aad iyo aad bay ugu baahan tahay dadweynaha deganna aad buu ugu baahnaa arintaas haddana waxa weeye gobolka oo dhan waa la socotiin oo meel kasta airport dabiici ayaa ku yaala ilaa Reeska Beres Casayr markii laga reebo airportadii hore oo caalamiga ah sidaas awgeed Galinsoor xilligan waa u baahan yahay in airport laga sameeyo waxa weeye marka saasa maanta u soo kormeernay oo ugu imaanay hadaan nahay maamulkii deegaankii odayaashii Galmudug xibna ka socda dhammaan sidaas baan ugu imaanay iyo hooyooyin ururka hooyooyinka sidaas waan soo booqana meesha waxaana Soomaalidu ku mahmaahdaa wax bilow wax lagu dare waxbaan bilaabanay sidaas awgeed waxaan rabnaa daan reer Galinsoornahay waxa aan bilaabanay in lagu saacido oo waxna lagu daro haday tahay jaariyada dawladda iyo haday tahay federaalka dawladda Soomaaliyeed iyo haday tahay stateska Galmudug iyo haday tahay hay'adaha caalamiga dhammaan waxaan ka codsanaynaa cid quseysaba in waxna lagu daro waxbaan abuuranay waxbaan bilownay waxbaan urugnay in waxna lagu daro ayaan rabnaa sidaas awgeed hadalku waxba tiro badan tari maayo qofku markuu dhaawacmo waa marka tiba la saari jiray haddana baawur baa la saaraa inta markay jirto ama naagaha umulaha markay dhalaan inta la sii wado bay dhig baxaan oo dhintaan haddii la helo wax fuudayo diyaarad la helo oo garoon la helana waa wax qiimo badan anigu nin Miami baan ka dhaqmaa geel baan dhaqdaa ari baan dhaqdaa waxaan ku deeqayaa ugu horumarinayaa marka uu warsa tulid geela inaan bixiyo aniga iyo wixii la midana waxaan ku boorinayaa si aan u helno garoon aan haddii la ku danaheena iyo danteena ku gaarno inaan garoon ka dhisano maxay tahay asoo iskiis uga fakiray inuu airportkan uu maxay tahay fakirkiisa keeno ku dhaqaaqo marka kulay hadda waxa weeye waa la hadlo wixii laga hadli lahaa horay baa looga hadlay anagu waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa airportkan ka hooyooyin ahaan waan u taaganahay inaan ka qayb qaadano waxaan codsanaynaa maadaama baahi aan u qabnay oo dadka bulshada rayidka ay airport la'aan u nugushahay qofkii asoo halkan gabadhii dhiig baxayso foolanaysay cunugiyo jiran gaari raf la sii saarahayo hadduu doono dhexna fuga dhacayso ay airportku yahay ximintii maqnayd oo ay bulshada rayidka u dhibaataysnayd waxaan doonaynaa inaan reer Galinsoor ahaan u istaagno fikradaas wiilkaas keenay aan la qaadano dadka ee walaalaha ay awal banaawin jiray
oo dibadda naga caawin jiray meel kasta. Maanta waxaan joognaa aeroboortigii degmada Galinsoor ee General Caydiid ayaan maanta ku sugannahay. waxaan halkaan uga mahad celinayaa Professor Cabdirasaaq Cabdullaahi Caanood oo miskaxdan keenay aas-aasana garoonkan aad baan ugu mahad celinayaa. marka saddexaad iyo marka afraad iyo marka koobaad meeshaan garoon way u baahan tahay. degmada Galinsoor waa qadiimi, waqti 180 sano ayay dhisan tahay magaaladan. maanta ugu horeysana garoonkeedii ayaa halkaan laga dhagax dhigay, lagana aas-aasay, la rabaa in laga dhisana. nin boqoraa waxaan maqlay waqtigii carabta ay diriraysay ayaa waxa la yiraahdo soo ciidamo watuu jaba god buu galaa la yiri. markuu godkii galay oo ciidankiisii la jabiyay ayuu wuxuu arkaa la quraanyo darbiga fuulaysa. quraanyadii 16 jeer markay darbiga afkiisii maraysa gadaal bay u laabataa li. markay quraanyadii laabatay markii 18aad bay banaanka u baxdaa li. Galinsoor waqti kasta oo ay soo kufto ay dhacdo waxaan u malaynaynaa insha Allah meesha ugu horumarsan deegaanada Galmudug inay noqoto. hadda aeroboorkan waa jira, waxa kale hadda la dhagax dhigayaa oo aan rabnaa inaan qadkeeda ku jirno. wadadii tareenka Hobyo iyo Itoobiya isku xiraaya asagana jaamacadii baa la dhagax dhigayaa iyadana. santarkii ganacsiga oo Itoobiya Soomaaliya ayaa iyadana Galinsoor laga dhagax dhigayaa. ma sha Allah wax badan baan rabnaa inaan wadankan ka qabanno, inaan la hami jabin. waxaan rabnaa garoonkan marka aasaasu waa keeno, qof baa fikradda keena, dadkuna way la qaataan. waxaan jecelnahay ilaa Galinsoor in aan ku dhisno isla tashi bulsho inaan ku dhisno ayaan jecelnahay. waana salaamaynaa dhammaantiin. waxaan u mahad celinayaa suxufiga weyn ee CD ee ka shaqeeya danahan 24 saac una taagan, asaga iyo qaybta saxaafadda aad baan u salaamayaa. waa dalkaaga iyo dadkaaga waxa horumarinaysid. 100% baan ku mahad celinaynaa. jazakallahu khayran baan leenahay wax kasta oo wadankan ka qabatid. waana ku Rahmaanur Rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. dhammaan walaalaheen dhammaantood waxaan leenahay aeroboorkii hawshiisii hadda meel fiican bay maraysaa. raacdadii labaad ayaa hadda socota carraka hawadii, shaqadeediina waa socotaa. hadda waxaan waa iskorgadii carraka hawadii lagu wada feeskii koobaad. hadda feeskii koobaad weli waa ku wadnaa. waxaan malaynaynaa haddii ilahay idmoar shaqada inay gabagabowdo aduu wax 3 bilood in camal carrakawa ku dhammaan karto insha Allah. saas rajaynaynaa. xildhibaanadii wasiiraan noo yimid oo nagala soo qayb galay aeroboorka waana soo dhaweynaynaa insha Allah. xildhibaanadii wasiiro dhammaantood way ka soo qayb galeen. waxayna uga soo qayb galeen aeroboorka howl meesha uu marayo. waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka iyo xildhibaanka oo nooga yimid xarunta dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb oo halkan maanta u yimid aeroboorkan degmada Galinsoor, aeroboort General Caydiid oo ku yaala oo laga bilaabay dhismihiisa degmada Galinsoor inay soo booqdaan maadaama ay tahay deegaamadii ay ka soo jeediyeen. waxaan leenahay soo dhawaada. meeshan waxaa loogu talagalay aeroboort ay yeelato degmada Galinsoor si ay ula jaanqaado deegaamada kale oo la midka ah, ay ula jaanqaado oo horumar ay u gaarto oo ummadaha kaleeto degmooyinka iyo gobollada iyo dhammaan ummadaha kaleeto horumarka ay higsanayaan inay higsato. ummadu walibana waxay u taagan tahay dalkoodii dadkooda inay horumariyaan. halkan fakarkaanna waxaa iska lahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Caanood ayaa iska lahaa fakarkaan. markuu fakarkan uu keenana waxaa la qaatay maamulka dhallinyarada, gabdhaha, hooyooyinka, dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada la qaatay reer Galinsoor wayna ku dhaqaaqeen shaqadaas. waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inay sidii loogu talagalay u taabagasho. cid kasta oo danaynaysa aeroboorkaas ama rabta inay ku biirto oo ay ka mid noqoto waa u furan tahay. lambarada dadkaas laga soo wici karana waxay ku qoran yihiin boorka hore aan u soo gudbinay ayay ku xusan yihiin lambarada lagala xiriirayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhismaha ka socda garoonka General Caydiid aeroboort Galinsoor runtii waa ku faraxsanahay hal abuurkan wanaagsan halkan ka socda. deegaankaana waa u baahnaa runtii garoon
meeshaan dhul badan oo kala fogo ilaa dhowr boqol oo kilomitir ilaa 800 oo kilomitir airport ma leh badankoodu muddo badan baa lagu taamaya laakiin maanta ay suurto gashay waxaan u mahad celinaynaa aqoon-yahanadii injineeradii hal-abuurkan sameeyey iyo inta gacan ka geysatay marka baaqanagu waxa weeye cid kasta oo hawl ka qosayso wasaaradda gaadiidka federaalka midda galmudug dowladaha iyo maalqabeennada inay maal gashadaan garoonkan oo mustaqbalka aan ku taamayno inuu noqdo garoon caalamiya oo daboolo baahida deegaanadan waana u mahad celinaynaa dhammaan dadka deegaanka iyo intii ka qayb qaadatay dhammaantood wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh